war cusub sababta rasmiga ah ee uu burburay xiriirkii jaceylka ee ka dhaxeeyay Lamine Yamal iyo Nicky Nicole oo la ogaaday xidiga daad yar ee Barcelona Lamine Yamal ayaa si rasmi ah u shaaciyay inuu jaray xiriirkii fanaanada caanka ah ee reer Argentina Nicky Nicole kadib xiriir jaceyl oo muddo dhowr bilood ah oo soo jiitay warbaahinta ciyaaraha iyo tan madadaalada tan iyo markii sawirkoodii ugu horeeyay si wadajir ah loo arkay iyadoo sidoo kale daadooda kala duwan iyo muuqaaladooda badan ee fagaarayaasha ay xiise gaar ah ku abuureen taageerayaasha si kastaba ha ahaatee xiisadii isfaham la'aan ayaa lagu soo warmay inay ka dhalatay xiriirka gaar ahaan markii Yamal uu u safray magaalada Milan si uu uga qayb galo xaflad gaar ah arrin dhalisay warar sheegaya inuu jiri karo khiyaano jaceyl oo keentay kala tagga labada qof waxaase arrintaas si cad u beeniyay Yamal isaga oo wareysi siiyay wariye lagu magacaabo Xabi Alonso waan kala tagnay oo kaliya arrintaas ayaan soo afjaray wax kasta oo hadda laga hadlayo ma aha wax xaqiiqo ah wuxuu sii raaciyay ma aanan qiyaamin mana aanan la joogin qof kale hadalkan ayaa si rasmi ah u xiray wararkii iyo malaawaalkii ku wareegayay kala tagga labadooda iyadoo Lamine Yamal uu carabka ku adkeeyay inuu hadda doonayo inuu xoogga saaro kubadiisa iyo mustaqbalkiisa Barcelona gaar ahaan iyadoo jadwalku yahay mid ciriiri ah iyo filashooyinka ku saabsan kobaca xirfadiisa ay sii kordhayaan maalin wanaagsan saaxiib yaal intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa warbixintii koobneed ee aan uga hadlayay wararkii ugu dambeeyay ee kubadda cagta haddii aad ilaa dhamaadka muuqaalka nala soo gaartay ilaawin inaad muuqaalka like saarto sidoo kalena sii share gareyso haddii aad nagu cusubtahay nagu soo biir oo ka mid noqo asxaabta nagu xiran mahadsanid